الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إلهي أيام هذا سبحانه وتعالى إنا وافجيي إنا يسوق النبي بركيسان بش رمضان وما تاينو مرينا مع الانتي سيدي يطبناد سيدانا أينو كدونا هينو قبينو طبعا كي دحا وحينو هرينا يهين عدي الله سبحانه وتعالى وقرأ طبعا كدام بينيتها بش رمضان يفضل جيدا وين وذا درسنا هاي إن بدنا والله قورمي وحن إن شاء الله تعالى أينو حلقة أما فضلا أينو أجاري لنا إنه كورنا طبعا كدام بي يفضل جدارات كي طبعا كسولية هاي طبعا كاسي وحو فضل كل شيء وحكون احتراها بين ليلة القدر هبين كاس والله سبحانه وتعالى أوتي المامين قرآن كريم كالله سودتشي والله وحور إنا أنزلناه قرآن كأنك سودتشي في ليلة القدر هبين كي شرفته يسرينتا هبين كي لها صفاداس يسري شرفت لها لحديث أيال سودتشي marka dejinta noocaasa sida ahlul cilmigu ay u badan yihiin waa habeenka laylatul qadriga ee bisha ramadaan ku jira. dejinta la soo dejiyayna waxa weeye waa markii laga soo raray quraanka lawhul mahfuudka samaa dunya baytul izz lagu soo dejiyay kadibna nabiga kaleey salaatu wassalaam iyadana lagu soo dejiyay bil ramadaan waxa weeye quraankii ugu horeeyay ku soo degay iqra bismi rabbikal suuradaas ay ku soo degtay. habeenkaasina sida aayad kale baa loo ku tilmaamay waa habeen barakaysan oo alla wuxuu yiri inna anzalnaahu fi laylatin mubaarakah inna anzalnaahu quraanka anaga soo dejinay fi laylatin habeen gudihi la habeenkaas mubaarakatin la barakay. marka habeenkaasi waa habeenka laylatul qadriga la yiraahdo شرفتاسانو ليه ليلة القدر waxa loogu magacaabay laba macno ba waa suuragal qadri oo looga jeedo rifca looga jeedo iyo sharaf oo macnaheedu noqonayo habeen rifca iyo sarayn iyo sharaf leh inuu habeenkaasi yahay sida aayada kale tilmaamtayna waa habeen mubaaraka oo barakadu waa laba dhinac khayrka iyo raxmadda iyo wanaaga soo degaya habeenka فربنا شاهو فربدن يهي iyo ducada aqbalkeeda iyo amalka saalixa aqbalka la aqbalaya farabadnaan oo farabadan yahay sidaas ayaa loogu magacaabay inuu yahay habeen barakaysan. macnaha kale laylatul qadriga culimadu ay ku sheegeen waa habeenka la qadaro ama la xukmiyo sanadka waxa dhacaya oo sida saxaabada qaarkood iyo taabiciinta ka soo arooray inay tahay habeenkaasi habeenka la xukmiyo qadaaga iyo waxa weeye sanadka soo socda wixii dhici lahaa habeenka la qadaro iyadoo qadaritaan hore uu jiray oo Allah subhanahu wa ta'ala hore u sii qadaray laakiin malaa'ikta hawsha u qaabilsan ayaa la ogeysiiyaa waxa weeye maxay tahay qaabka wax u dhacaya sanadkaas. labada macnaba waa la yiri oo macnaha hore inuu habeen barakaysan inuu habeen sharaf iyo rifca u saaxiiba inuu yahay aayada kale laga qaato inuu yahay fi laylatin mubaaraka. isla aayada suuratu ad-dukhan lafteeda ay qolada kale oranaysa waa habeenka la qadaro arrimaha ay ka qaateen oo aayada ku xigta waxay oranaysaa fiha yufraqu kullu amrin hakim. habeenkaas barakaysan ayaa la kala xukumaa oo la kala saaraa arrin kasta oo waxa weeye la jaangooyay oo loo jaangooyay adigu labada macnaba istiidimayaan. fadliga habeenkan uu leeyahay laylatul qadriga waxa kamida in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay in habeenkaasi uu la mid yahay kumbilood. alla wuxuu inna anzalnaahu fi laylatil qadr wama adraaka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. habeenka laylatul qadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kumbilood buu ka khayr badan yahay waa dhowr 8 sanadood. يعني amalka habeenka laylatul qadriga lagu waafajiyo aad samayso iyo taacada iyo wanaaga aad samayso noocay doontaba ha noqotee waxay u dhigantaa
إن آد وحوية صدح يستيتن سنضات عمل كائنات ثمينيسي كنت وفضل آدي آدوين فضل هذا وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يري حديث أبي هريرة في الصحيحين نبي يري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هبينك ليلة القدر استاغا عبادة استا صلاة كذا وحلو دم بدافع وحي تغيي الذنوب تيسأه لكن وحلو حلو إلا بشرط إيمانا واحتسابا يعني إنه مؤمن يهي islamarkaana uu ku ajar dalbayo oo ilaahay u ajar kaga doonayo aanu istusnimo iyo riyaa iyo wax kale aan uga jeedin labadaas sifo haddii laga helo habeenkaana uu istaago dambigiisii hore ayaa loo dhaafaya dambiga la dhaafayaana waa kii weynaa iyo kii yaraa labadaba dambi oo dhan waa loo dhaafaya marka runtii waa fadli aad iyo aad weyn habeenkaas laylatul qadriga سيدنا النبي كسر أرتي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أي ويدي سيد هبينك هدي أنا هليله محن كنت عيسانية والنبي أوت المامي صلى الله عليه وسلم وكيري وحتى هذا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني إلهي وحتهي مدا بدافع ووليب كريم وشرف له وكرامة له وديقسية إلهي وإيدا بداف ويعفي سيدا كدو عيسى يا النبي كوري صلى الله عليه وسلم عائشة وحويا وتلمامي هذا بها بين كاس فضل له طبعا ضمبه حقيبوك كجرا أحاديث تقصى أرورتي ويكلا دوانت أقواش أهل العلم أي كليين مثلا سنوي فربضنت إلا فرطا قول أيا لقارسية حددد هبينك ليلة القدر وهبينك وكقرعية محوية طبعا كضمبين لكن سيدا راجحة وحوية هبينك سيو قورقورة وحسي حديث تقصى أرورتي النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إن لقبارو ليالي الوتر هبين ندى وحويان أن دميسكة الرين كوبي لباتنك صدحية لباتنك شنية لباتنك تضبية لباتنك سقالية لباتنك ترى كلا دمان إلا قبارو marka intaas ayay ku dhex wareegtaa oo sanad waxa laga yaabaa 12 inay gasho sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu laga wariyay waxa weeye sanadka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay ama amaaradii calaamadii la arkay in habeenka 12 ay noqotay saas ilaamida waxay noqon karaysaa 23 oo culimada qaarkood ay doortaan oo yiraahdaan sanadka sida waxa weeye bisha habeenka 23aad weeye laylatul qadri culimada qaarkood 27 ayay doortaan waana qowlka loo badan yahay moodo inuu xaga quwadana ugu quwa badan yahay culimada in badan oo kamid ay ku tageen sanad walba inay 27 ay tahay waxa weeyaan laylatul qadrigu laakiin xaga rujxaanka ay raajixnimada inay guurguurta ayaa raajixa oo waxa weeye tirada kala dhiman inay habeenba mid ay galayso sanadba mid inay mid galayso oo ama ay 12 ka noqonayso ama 13 ka ay noqonayso ama 25 ka ay noqonayso ama 17 ka ama 19 marka intaas ayaa laga baaraya waxa kale nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in 10 ka dambe oo dhan laga baaro xadiiska nabiga ka soo aroortay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida xadiis Aisha radiyallahu ta'ala anha in nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu yiri taharraw laylatul qadri في العشر الأواخر من رمضان طبعا كضمبة رمضان كبارة وحوي من ليلة القدر روحاتنا طبعا هبين وحاد كوبا قفك خير كأنت عليك دونية إنه هلا دونية أو حادي آدو كوبا وي وطبعا هبين وحلتري مركا قفك مسلم كاوح الله شرعية إنه طبعا كضمبة كده دالو إنه بارو هبينك ليلة القدر وهبين والبو عبادة يطاعة كده دالو هذا النقطة صلاة قيام الليل كأما صلاة التراويح مربطي وفضلاتا إنه حاجة ضمبة قيام الليل كعيان فضل بدن إنه تا كده دالو إنه قرآن أخرس كده دالو ولبا هديو ختمي كريو بشا وحوي طبعا كعشاء ضمبة وهبين والبو واخريو وحوي آدي آدي وفي عنتن صدقات إنه كده دالو الله برجع إيه حسك إيه الدعاء إيه استغفارته إيه وحصل إنه كده دالو أي لو بهين هبين كاسي علامة دمليه
يعني علامات لغو قرانيو إن وحوية ليلة القدر وياي حق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثك في صحيح مسلم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحو تلمامي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه تلمامي عفوا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من قوله إنه تلمامي هبين كاسي صباح ديدا على مدى لو قرانيا إنay tahay inay qorraxdu soo baxdo iyadoo saafiya oo wax shucaaca aan lahayn culimada qaarkood waxyaabo kale sheegaan oo ay kamid tahay habeenkaasi in habeen haadi ah oo aan dib iyo buuq iyo qayle aanu lahayn oo xasiloon yahay waa calaamada la sheego oo ahlul cilmiga ay tilmaamaan laakiin waxa weeye qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay inaan waxba isku mashquulin calaamada inuu taacada ku dadaalo طاعة إنه كدال وهي واحد صورة قال هبينك كويلا واتناد انتو علاماتي هي للشيء وحكام ده انتو واركين يصير هذا ليلة القدر جي واضح لشيء مع المهضم به وحبة وحويان ها عبادة سنين مركا قفك وحا في عينه نسكو مشغولين إنه كدالو إنه وحويا كدالو هبين مع المها إن طاعة إنه كدالو وهي ما كلام مشروع أرنتي أو نكالمين يقفك إنه طاعة كدالو وحكام ده أو شرعية إنه اعتكافه qofku i'tikaafo oo naftiisa uu ku xabiso masaajid jamaacada laga oogayo jumcada inuu wax weeye masaajid jamaacada iyo jamaacada laga oogo inuu ku i'tikaafo oo wax weeyaan uu 10 habeen iyo 10kooda maalmood oo ku dhamaysto ilaa ciida laga ilaaminayo habeenka inuu ku jiro halkaas waayo taasi waa cibaado mustaqila i'tikaafka nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa i'tikaafi jiray xaasaskiisii markii uu dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam way i'tikaafi jireen saalixiinta iyo dadka wanaagsan way i'tikaafi jireen marka i'tikaafkaasina waa muciin iyo mid kaalmeeyo kugu kaalmeynaya in aad habeenada iyo maalmaha in taacada aad laazimto oo aadan ka mashquulin taasina waxa weey waa amal loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan naftayda iyo cid kasto ay maqlaysaba aan waxa weey ka baryayaa inuu khayrkayna waafajiyo taacadayna waafajiyo inuu fudaydiyo xaqana inagu sugo laylatul qadrigana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu haleeshiyo kuwa ka faa'iideysana Allah inaga yeelo Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in